maanta waxaad ina wadaagayaa wax aan hore u ogeyn aan dhawaan bartay soo fadlan videoga aan u dir qof kasta oo cereal cuno ama ilma haysta ama dad mas'uulka ah that like cereal. Anyways, cereal-yaasha saddexdaana idin tusaya waa saddexda cereal oo ugu iron badan. Aniga I make sure saddexda inay gurigeyga ka dhamaanin because aniga waxa ahay qof oo chronically anemic ah. Anemia maba iga dhamaata ilaa markiis no matter how much I try. Ala kulli xaal saddexdan cereal ayaga ugu iron badan. Muhiimadda videogan kale maxaa waaye dhawaan waxay naagta nutritionskayga i bartay haddaa cereal cunaysid caanaha caadiga ma ku cuni kartid. haddaa cereal cunaysid caanaha caadiga ah ma ku darsan kartid. waxaa ku darsan kartaa caano oo lactose ahaan. lactose maxaa laga wadaa? caanaha waa inay ahaadaan dairy free. caanaha caadiga waxaa ku jirta lactose waa dairy milk waay soo maaha. waxaa u baahan tahay caanaha oo caadiga ahaan. hadda kanoo kaleeto jabaaniga idin tusaya haddaa jeceshaha waa isticmaali kartaa laakiin xoogaa calorieskiisa badan. kan waa isticmaali kartaa calories badan ma laha ma fahantay waa dairy free so uma jeedid so anytime aad cereal cunaysid waa inay caanaha ku darsanaysid ama ilmahaaga ugu daraysid ay ahaato lactose free milk ama dairy free milk because ironka jirkaaga ma galayso. waxaa waa adigoo jirkaan weyn oo bariis isku cunto kaleeto wax nacfi ah ma ku jiro because caanaha caadiga ah waxay ka soo horjeedaan iron absorption. jirkaaga ironka ma galayso so sidaan hadda ugu qasatid ilmihii ma dareemayaan waana caafimaad